warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan weerar lagu qaaday hoyga magaalada Jowhar uu ka degan yahay taliyaha guutada 3 ee 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaas oo dhawaan heshiis la galay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud amniga magaalada Jowhar oo toddobaadkii ugu dambeeyay ee u muuqato in ay markaasi ka dhacayeen qaraxyo iyo dilal qorsheysan haddaba maxay tahay waxyaabaha markaasi keenay in xilligan magaalada Jowhar oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe in ay ka dhacaan weerar kala duwan yaasa fulinaya madaxweyne Cali Guudlaaw Xuseen waxa uu ku dhawaaqay in xubno markaasi ka tirsan mucaaradka ay si weyn ay isaga ula dagaalamayaan maadaama uu haatan uu heshiis u leeyahay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxayna si guud ay u dul istaagi doonaa xaaladda magaalada Jowhar mucaaradka oo iyagana markaasi ku hanjabay in ay gacanta la gali doonaan doorashada dawladda federaalka Soomaaliya ee qorsheynayso in ay ka qabato dawlad goboleedka Hirshabeelle maxay tahay cabsida xilligan ka jirta magaalada Jowhar iyaysa tahay cid markaasi qaadanaysa mas'uuliyadda waxayna si guud ay u dul istaagi doonaa xaaladda Jowhar iyo dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee dhinaca ciidamada ee ka socda halkaasi iyo mucaaradka oo iyagana markaasi isku dayaya in ay awood ciidan ee markaasi ku dhaxyeeshaan gudaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 1 bisha 6 Juun ee sanadka 2026 haddii aynu ku bilowno weerar ayaa waxaa lagu qaaday hoyga magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe uu ka degan yahay taliyaha guutada 3 ee ciidanka 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana sidoo kale weerarkan uu ahaa qarax lagu weeraray hoyga magaalada Jowhar uu ka degan yahay taliyaha guutada 3 ee 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bamgacmeed ayaana sidoo kale lagu weeraray gurigan inkastoo markaas aan si rasmi ah loo ogeyn qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkan lagu qaaday hoyga magaalada Jowhar uu ka degan yahay taliyaha guutada 3 ee 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadalhayn xoogan iyo sidoo kale tuhunno ayaa durbaba waxay markaas ka dhasheen weerarkan ee lagu qaaday taliye Sani Cabdulle waxaana dadka qaarkood ay durbaba ay markaas leeyihiin weerarkan waxa suuragal ah in ay markaas ku lug leeyihiin xubno mucaarad ah oo iyaga markaas ku sugan gudaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe Sani Cabdulle ayaana dhawaan waxa uu heshiis uu la galay dawladda federaalka ee Soomaaliya inkastoo heshiiskan la leeyahay ma ahan mid caga badan ku taagan dadka qaarkoodna waxa ay markaas shaki ay ka muujinayaan heshiiskan uu la galay dawladda federaalka ee Soomaaliya Sani hadii uu markaas heshiiskan uu dhab u noqdo oo uu la galay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa dhinaca kale suuragal noqon karto in kooxo kala duwan ay weeraro ay markaas ay ka iman karaan lafdhabarta iyo sidoo kale awoodda ay markaas mucaaradka inta ugu badan ay ku tashanayeen dhinaca ciidamada marka la eego saraakiisha sida weyn u doonayeen mucaaradka waxa kamid ah taliye Sani Cabdulle iyo saraakiil kale oo iyagana markaas ka tirsan kuwa militariga ee Soomaaliya arrimahan ayaana sidoo kale durbaba waxa markaas ay la xiriirinaya xaaladda magaalada Jowhar iyo sidoo kale in la qabto tallaabooyin degdeg ah oo la xiriira arrimaha doorashooyinka habeenka hor magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa lagu dilay askari kale oo isagana markaas ka mid ah kuwa ilaaliya wadooyinka magaalada Jowhar oo dhismay haatan ay ka socdaan taasoo iyadana ah mid kale ee muujinaysa durbaba in ay tahay in magaalada Jowhar xaaladeedu aynan marnaba wanaagsaneyn isla toddobaadkii hore magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa lagu dilay gudoomiyihii xaafadda hanti wadaag ee magaalada Jowhar oo isagana markaas ka mid ahaa gudoomiyaasha xaafadaha ugu firfircoonaa ee magaalada Jowhar waxaana durbaba arrintan markaas ay muujinaysaa shaki iyo sidoo kale walaaca ay dadka qaarkood ee markaas ay qabaan dhinaca mucaaradka hadii aynu eegno mucaaradka dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan waxa iyagu ay markaas ay ku hanjabeen in ay qaadi doonaan tallaabooyin kale oo dheeraad ah la xiriira qaabka ay ugu hortagi lahaayeen doorashada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayso inay ku qabato Hirshabeelle waxaa loo kala qaaday arinta markaas lagu wajahayo doorashadan iyo sidii looga hortagi lahaa laba arin oo labada gobol loo kala qaaday waxaana kala qaatay siyaasiyiin ka soo kala jeeda gobolada Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe hadii aynu eegno warar soo baxay ayaana saacadii ugu dambeeyay waxay tilmaamayeen in madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed uu isaga markaas wacad uu ku maray in aanan marnaba doorasho aanan heshiis raalli lagu ahayn in aanan lagu qaban karin
magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe arintaasi waxa durbaba ay markaasi ay dhalinaysaa tuhunada la xiriira weerarada dhacay iyo sidoo kale hanjabaada madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed in ay markana ay iswaafaqayaan oo iyadana durbaba markaasi ay u muuqato in ay tahay mid kaliya oo haatan markaasi ay soo korortay dowladda federaalka ee Soomaaliya hadii aysan qaadanin tallaabada in la xiriirta qaabka markaasi ay ku wajihi karto xaaladda in la xiriirta dowlad goboleedka Hirshabelle iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinku waxay noqon kartaa in ay xaaladeedu ay markaasi noqoto mid faraha ee markaasi ay ka sii baxda Hirshabelle marka la eego waa maamul jilcan oo dhinaca awood ah sidoo kale ma jiraan ciidamo awood leh hadii aynan dowladda federaalka ee Soomaaliya aynan geynin ciidamo fara badan oo awood leh sidoo kalena ka hortago dhaqdhaqaaqa iyo damaca markaasi xubnaha mucaaradka dhinaca gobolka Hiiraan hadii aynu eegno mucaaradku waxay sidoo kale ay diyaarinayaan xubno kale oo iyagana markaasi ka soo jeedo gobolka Hiiraan oo dadka hore sidoo kale u hanjabay waxa dhinaca kale ku jira agaasimihii hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe waxa uu shaaciyay in doorasho aanan raali lagu ahayn misna dadka deegaanka aysan ogoleen oo aysan aqbalsaneyn in aanan marnaba lagu qaban karin deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Hiiraan taasoo iyadana ah mid kale ee soo kortay durbaba sidoo kalena markaasi muujinayso in ay ka dhalan karto cawaaqib xumo iyo sidoo kale in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay awood markaasi ay u weyn karto hadii tallaabooyinkan oo dhan ay sidan ay ku sii socdaan waxa dhinaca kale la leeyahay waxa suuragal ah misna macquul ah in dowladdu ay markaasi awoodeedu ay noqoto mid daciif hadii markaasi loo adkaado dhinaca arrimaha doorashooyinka laakiin xubnaha mucaaradku waxay dhamaantoodba markaasi wacad ay ku mareen in ay ka hortagi doonaan dhaqdhaqaaq kasto iyo sidoo kale tallaabo kasto ay markaasi damacsan yihiin xubnaha mucaaradka iyaga markaasi ku sugan gudaha caasimadda Muqdisho ayaana dadaalo kala duwan ku bixinaya in dowlad goboleedka Hirshabelle laga hortago in dowladdu ay sidii ay doonato ama sidii ay doonto ay ka yeelato misna doorashooyinkan ay markaasi ay qabsato arrimahan oo dhan durbaba waxay markaasi muujinayaan shakkiga iyo sidoo kale walaaca laga qabo taasoo iyadana ah mid ka dhalan karto hadii ay sidan arintu ay ku sii socoto in dowladda dhexe Soomaaliya looga awood roonaado laakiin madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale wararka aynu helayno waxay markaasi ay tilmaamayaan in saraakiil muhiim ah oo ka soo kala jeeda labada gobol ee Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe looga yeeray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka saraakiishan ayaana sidoo kale waxa loo xil saari doonaa misna loo dhiibi doonaa galka doorashooyinka iyaga ayaana sidoo kale sugi doona amniga guud ee labada gobol ee Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe hadii arintu sidaas ay si ahaato waxa ay markaasi ay muujinaysaa in dowladdu ay markaasi ka sii fakarayso qaabka loo wajihi karo iyo tallaabada xigta ee markaasi la qaadi karo oo iyadana markaasi ah su'aalaha inta badan ay dhinacyadu ay haatan ay isweydiinayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bishan June oo hadda kooda ah waxa sidoo kale uu qorsheynayaa in doorashada Hirshabelle uu gudagalo kadibna uu ku xijiyo mid kale ee iyadana markaasi dowlad goboleedka Galmudug haddaba amni darrada Jowhar iyo sidoo kale hanjabaada mucaaradka waxyaabaha ka soo kordhana waynu idil wadaagi doonaa